guddiga qandaraasyada ee Somaliland ayaa waxa ay shaaciyeen shirkadaha ku guuleystay 4 mashruuc oo horay ay imtixaankooda u qabteen guddiga qandaraasyada ee Somaliland ama tartankooda warbixin arintaasi la xiriirta waxa nooga soo diray magaalada Hargeysa Xamse Dabare guddiga qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay mashaariic ay hore u baahiyeen tartankooda waxa madashaasi lagaga dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay mashaariicdaasi ku sugnaa xubno kamid ah guddiga qandaraasyada oo uu horkacayo gudoomiyaha guddiga qandaraasyada Nuux Maxamed Xuseen oo ugu horeyntii halkaasi ka hadlaya faahfaahin ka bixiyay shirkadaha ku guuleystay mashaariicdani loo doonayo dadkii xooluhu ka baxeen ee ku sugan xeryaha barakacayaasha gobolada Togdheer iyo Sanaag waxa ku soo tartamay 9 shirkadood waxaana ku guuleysatay shirkadda Amal Service qandaraaska qalabka GPRS-ka ee loo doonayo gaadiidka dawladda waxa ku soo tartamay 7 shirkadood waxaana ku guuleysatay shirkadda Talasom Company qandaraaska biyo ballaarinta Wajaale iyo Gabiley dhaamka Maxamed Daawud qool dhuxulaale iyo gumburaha waxa ku soo tartamay 18 shirkadood waxaana ku guuleysatay Caalami Construction and Railing Company qandaraaska labada hool ee loo dhisayo wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxa ku soo tartamay 27 shirkadood waxaana ku guuleysatay shirkadda Kibis Construction dhankooda iyaguna waxa halkaas hadalka iska daba qaatay xubno kamid ah guddiga qandaraasyada iyo shirkadihii ku tartamayay mashaariicdaasi kuwii guuleystay iyo kuwii laga guuleystay la hesha mas'uuliyadda saaran ee ah in qandaraaska ay qaateen ay sidiisii uga soo baxaan ay u fuliyaan waayo qandaraaska markaad qaadato waxa qurux badan qaabkii loogu talagalay si waxa qabataan in noqdaan wax raandhiis leh dardaaran ahaan u bari ku jeedinaya midda labaad imaka qandaraasleyda ka qayb gashay qandaraasyadu boqolaal bay gaadhayaan aad bay u tiro badan yihiin laakiin waxaad moodaa in awoodooda iyo miisaankooda haddana uu yar yahay intooda badan waxa qurux badan in ay isu tagtaan oo midnimadu way fiican tahay hadda wax wada yeelataan waxa laga yaabaa in kambaniyo waaweyn oo adag yahay inay dhismaan dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo farsamo ahaanba waxaan ka socdaa shirkadda Cabdirashiid Al Khalifa oo u tartantay xoolaha waa laga guuleystay waxaan hambalyeynaya ciddii guuleysatay ma aha waxaan soo tartamay inaan guuleysto laakiin waa inaan berri iyo sahan dambe iyo saakuun mid baan guuleysan doonaa waxaanu ballan qaadaynaa inaanu shuruudaha saanu ku soo qornay insha Allah u fulin doono isna mashruuca waxaanu ballan qaadaynaa inaanu sida ugu fiican ee ugu macquulsan ee ummadeena iyo dadkeena waxtarka u ah aanu u dhameystiro annagoo horeba shaqooyinkan uga soo qabanay goobahan shaqooyinka laga qabtay anigu 2 qandaraas baan soo qornay midna waa la naga helay midna waanu helay kii weynaa waa waliba la naga helay kii yarana waanu helay waxaanu leenahay dad ganacsatada waxaan ku jirnaa muxuu ahaa midaadka badan ee dad midaad ku tartama haddana anagoo midaad ku tartamayna ka naga helay inuu leeyahay baa laga yaabaa midaad ku aan midaad lahayn inuu muxuu ahaa waayaba laga yaabaa waan soo dhaweynaynaa waananu ku qanacsanahay